الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن العباديسته oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala annaga adduunka markaad fiiriso asbaab buu ku noolyahay horumar amni istiqraar buu haystaa annaga lam yabqa lana illa hablun min Allah Ilaahay habligiisa ma haysana asbaabta aan ku noolnahay adduunka markaad soo bandhigto ma ku soo baxayso xayaata adduunku meeshu maray meel caadi ma waxaas marta waxa la yiraahdaa mas'ala waqti la way waa mas'ala waqti leh waa baabaaysa waa inaan niyadanada maxaan ku iraahdaa gelino wa'ada Allahu alladheena aamanu wa 'amilus salihati يعني لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا آيات داس وين نقول لك نواي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين soo dhawada channel magacaaga saddexan waa Cabsi Maxamed Abdi Cabsi ka war sidii lagu ciiday maanta magaalada Balaxaw ma sha Allah si wanaagsan loo ciiday waa bushbushay barwaaqo alxamdulillah ku soo dhawada channel waa ku dhawahay magacaaga saddexan magacayga saddexan waxa weeye Cabdifataah Xasan Buule Cabdifataah ka war maanta sidii looga ciiday magaalada Balaxaw wallahi degmada Balaxaw maanta waxa looga ciiday si aad iyo aad u wanaagsan inkastoo ay nooga duwan tahay ciida maanta ciidii hore oo ay dadku iskugu imaan jireen banaanada iyo garoomada degmada ku yaalo maanta waxaan dareemaynaa ciida inay ciidii hore nooga duwan tahay oo ku soo ciidnay masaajidda ku yaalo degmada Balaxaw ma sha Allah marka farqi weyn baa u dhaxeeya leedahay maadaama coronavirus laga baqayo oo goobihii loogu talagalay in lagu ciido aan lagu ciidin farqi weyn adoo ka faa'iideysanay barnaamijka ciid wanaagsan ee Gado Channel ga doonaysa in halkan ka salaamto halkan dhamaan horta marka hore waxaan ka salaamayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo muslimiinta dhamaan waa salaamayaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa family-gayga aabahay macaan Xasan Buule iyo hooyaday iyo walaalahay dhamaan waxaan leeyahay farxad iigu ciideeda kale barwaaqo iyo bashbash iyo nabad Allah nagu gaarsiiyo Cabdibaashi ka waran maanta sidee u ciiday si fiican baa u ciiday ay ciidan ciidii hore ka waran ciidan baa fiican ayaa doonaysa halkan inaan ka salaamto adoo ka faa'iideysanaya barnaamijka ciid wanaagsan ee Gado Channel hooyaday iyo aabay saaxiibayaashay walaalahay magacaaga ximbil baa la yiraahdaa ximbil ka waran maanta sidii looga ciiday magaalada Balaxaw si wanaagsan inkastoo anigu aan soomanahay si wanaagsan baa looga ciiday aad iyo aad ciid wanaagsan baan leeyahay insha Allah hadii Allah ilba 29 baan xoogaa ka jaakiray anigu waa soomanahay insha Allah ilaahay aduu igaarsiiyo sababta u soomantay maxay tahay hadii dad muslimiin oo lagu kalsoon yahay bisha arkeen 6 saac baan seexday xalay 6 saacna lama haynin wasiirka arrimaha diinta iyo uqaaftu ma u sheegin gaarisana waxa la yiri ma annaan arag barina soon ma aha carabtu waa soontay adduunka caalamka muslimiinta oo dhan way soomeen waa soon bay yiraahdeen intaas markaan marahayo waxa weeyaan anigu waan iska seexday saaka markaan soo toosayna waxa weeye dad iidahayaan maqlay
masaajid baa ii dhow ma laga iiday baan idhi mayaa la yidhi bas waa iska seexday soonkaygii baa weli ii xiran marka waxaa ku adkaysanaysaa inaad maanta sii soo waxaan ku adkaysanayaa inaan soomo 30 kana buuxiyo haddii alla idin ku soo dhawow Geda Channel waa ku dhawahay ka warran maanta si looga ciiday maanta magaalada Balxaawo maasha Allah wallahi si fiican oo eegna basha barwaaqo waa gartay adoo ka faa'iideysanay barnaamijka ciid wanaagsan ee Geda Channel ay doonaysaa in halkan ka salaamto wallahi saaxiibkay Sharmaaka meesha aan ka salaaman jeclahay aye waa ka dhamaanta inta ciid maanta ila soo eedin waa salaamada islaamaya ku soo dhawow Geda Channel waan ku dhawahay magacayga waa Axmed Maxamed أحمد كور مان سي لوجي إيدي مقالة بلحاو ما شاء الله لما سوى كوبي كلا بلحاو مقالة بلحاو نم ويدي وبقول كيف بقول ويدي هل يلا بقى كذا يسومين لك وين ما مقالة نم ويدي واقرتي محاس لهذا إيدي هري إيدها ويكون الدوين والله بالله فرق وين بقول حي أدي فرق وين أقول حي وحاول ويكل دوين ما حكول دوين وحاول كو تاريخ ذا قشيد دق مدى بلحاو وكنت جنن مصليه جرانك سوجر أوجد عذر كان أدونك هلقي أو كان حري ودنك عذر كأو مقالدي صوت بدن صور ردنا هي سادرت التاس وفرق وين أقول حي إن ما أنت مساجدين اللي قلت كذا حتى ذاتك بقول كذا حتى كنت أنا إيمان يقول كنت كذا أصلا عذر كجري شرعي كان أوقف وقرت هذا كفاية سنة برامج عيد وعكسنا كذا channel يا دوني سنة لكن كسلامته ضمان مسلمين عالم كمل كستوجوجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة قرابتي ضمانتود إسلام كمل كستوجوجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا سلام سلام يا كسروا كذا channel وكله كذا channel magacayga Ibrahim Maxamed Warsame Ibrahim ka warran maanta si looga ciiday magaalada Balxaawo ma sha Allah Balxaawo maanta si wanaagsan baa looga ciiday waa dareemaysan farxadda iyo shucuurta dhalinyarada ka muuqata aad iyo aad baan waxaan u leenahay hambalyo dhalinyarada ku nool magaalada Daafeed waa gartay maxaa is leedahay iidii hore iidan ku kala duwan wallahi iidana waxaan moodaa inay xamaasad badan tahay waayo aad iyo aad bay kaga wanaagsan tahay inkastoo xoogaa una dhibaateyn iyo xanuunadan hadda coronavirus laakiin ma sha Allah way wanaagsan tahay